السلام عليكم كل وعنا عادل كسو دوادا قلنك مانتا إيا موقال عصوب فضلا هديات كو عصوب تاها جنال كنا سبسكرايب صار سينا شرقري لايكتنا كي لابن سيدي رقلين نوغو نقطو مع السندين موقال كينا مانتا waxaan kaga hadli doonaa kadib sugitaanka muddo dheer kadib ugu dambeyn waxa la soo bandhigay hordhaca ugu horeeya ee filimka waxaana uu ahaa bandhig ay ku farxeen dadka xiiseeya filimkan waxaana buuxiyay isweydiimo badan iyo waxyaabo qarsoon muuqaalkeena maanta asxaabay waxaan ku falanqeyn doonaa hordhicii la soo bandhigay iyo sidoo kale dhammaan dhacdooyinka ku jira anagoo idin soo bandhigi doona mid yar iyo mid weyn wixii la soo bandhigay ama ka soo muuqday bandhiga dabcan waxa idin soo bandhigeynaa jilayaasha ka soo muuqday bandhiga iyo doorarkooda ugu horeen inta aan guda gelin shakhsiyaadka ka soo muuqday bandhiga iyo doorarkooda waxaan faahfaahin guud ka bixin doonaa bandhiga iyo sidoo kale hadafka laga lahaa si kooban run ahaantii bandhiga waxaa loogu talagalay in lagu soo bandhigo fikradaha iyo sidoo kale dhacdooyinka juska labaad ee Carlos Cusmaan laakiin hadalka ahaa inaan helnay sirta fasirkeeda ayaa noqonaysa in sirta Cusmaan iyo aabihiis iyo weliba tan jamaacatu laxdul baydaa oo sirtooda la ogaaday waxaa bilowday dagaal la wada og yahay iyo kulan saddex geesood ah kaasoo lagu aasaasayo dowlad weyn oo Cusmaaniyiinta ah raadka qarsoon ayaa iyagana waxaa lagu qeexayaa jamaacada lagu magacaabo laxdul baydaa kuwaas oo furay wadada faca weyn ee lagu ilaalinayo dhaqanka dhanka kale kuwa riyooday ee ku dhagan seefta waxaa loola jeedaa Cusmaan ugu dambeyn waxay u kulmeen si ay u ilaaliyaan riyada la wada sugayay taasoo ah in la aasaaso dowlad faca weyn qofkii ugu horeeyay ka soo muuqday bandhiga waxa uu ahaa Amiin Garasoy kaas oo jilayay bandhiga caanka ah ee lagu yaqiinay Mongooliyiinta asagoo ka soo muuqday bandhiga isagoo qaandada gubaya sidii uu horeba u sameeyay Mongooli juskii koowaad ee filimka dhinaca kale naagta taagan hareeraha Amiin ayaa iyana waxay ka mid tahay Mongooliyiinta sharta badan qaybtaas ku jilaysay sidaas darteed muuqaalka bandhiga ma ahayn bandhiga saxda ah ee qaybta 28aad ee waxa uu ahaa bandhig hordhac u ah guud ahaan juska labaad ee filimka Carlos Cusmaan waxaa ka soo muuqday 3 jilaac cusub waxaana ku jiray jilaaga Amiin marka la eego habka uu u hadlayay iyo sidoo kale dharka uu xirnaa waxay noo cadaynaysaa inuu yahay Mongooli waxaana uu ka mid yahay Mongooliyiinta taas oo ka dhigaysa inuu yahay cadowga Cusmaan kana soo muuqan doona juska labaad laga yaabay inuu jili doono doorka Geygatu Qaan ama mid ka mid ah caawiyaashiisa qaaska ah dhinaca kale waxaa jirta saadaal sheegaysa inuu Cusmaan la garab yahay doorkiisa lagana yaabo inuu noqdo doorka ninkii caawin jiray Ertugal juskii labaad laakiin jilaaga Junayd Arkin oo ka mid ah jilayaasha ugu waaweyn ee Turkiga ayaa aad loogu faraxay markii lagu arkay bandhiga isagoo markii hore loo saadaalinayay doorka Ertugal waxaana uu hadda jili doonaa doorka hogaamiyaasha jamaacada laxdul baydaa ugu dambeyn jilaaga ugu dambeeya ee bandhiga ka soo muuqday waxa uu ahaa Tamiir kaas oo jili doona doorka Ertugal waxa uu la soo muuqday calaamado badan taas oo ugu dambeyn noo xaqiijinaysa inuu yahay Ertugal waxaana ku ogaan karnaa gobolka marada ee ku xirnaa seefta taas oo hore ugu hadiyeysay suldaanad Xaliima iyo heybadihii lagu yaqiinay Ertugal ayaa ahaa ninkii bilaabay wadadan waxaana uu hadda u yimid si uu Cusmaan ugu wareejiyo wadadan si loo aasaaso dowlad weyn taasoo ah riyadii la wada sugayay muddo dheer macluumaadyo intan iyo in ka badan waxay idinkugu soo baahin doonaa muuqaalka xiga waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka fadlan haddaad ku cusub tahay janaalkeena subscribe saar siina share garay like-tan akii laawin si dhiirigelin noogu noqoto nabadgelyo